wasaaradda caafimaadka ee Puntland ayaa magaalada Garowe waxa ay ku qabatay shir wacyigelin ah oo ku saabsan fayadhowrka iyo nadaafadda sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Maxamed Saciid Yuusuf. munaasabadan wacyigelinta ay lagu qabtay xarunta wasaaradda caafimaadka ee magaalada Garowe waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka xubno ka tirsan golaha wasiirada hay'ada caalamiga ah bahda caafimaadka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana bulshada lagu iftiiminay faa'iidada nadaafadda iyo xanuunada laga dhaxlo nadaafad darrada iyadoo munaasabada lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee farxalka adduunka oo ku beegan 15 Oktoobar maadaama biri ay tahay maalin ciid ah oo dadku fasax yihiin. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland Cabdirasaaq Xirsi Xasan ayaa ka sheekeeyay faa'iidada ay leedahay in nadaafadda lagu dadaalo isla markaana faraha la iska dhaqo hadii gacmaha sida lagu talagalay loo dhaqo ama la iska ilaasho nadaafad xumada in waxa la yiraahdaa dhaqaatiirta waxay dhahaan boqolkiiba 75 cudurrada waxa looga hortagi karaa kaliya muxuu ahaa faraha lagu gudbiyaa waxaan ognahay cudurrada ay keenaan nadaafad xumadu oo ugu horeeya hadda booliyan ka hadalnay daacuunka ama kolera waxa loo yaqaano xataa waxyaalaha caruurta 5 sano ka yar cudurrada ku dhaca oo loo yaqaano muxuu ahaa upper respiratory infections xataa oo virus kasta laakiin waxa ugu badan oo ay keeni karaan waxa weeye in nadaafad xumo. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Puntland Maxamed Xirsi Ducaale ayaa shacabka Puntland ku booriyay inay nadaafadda ku dadaalaan gaar ahaan hooyooyinka maadaama ay iyagu maamulaan qoyska. dhowrku wuxuu ka bilowdaa gacmaha bini'aadmiga oo la dhaqo nadaafaduna halkaas ka bilaabatay sideeda gacmahaaga oo dhaqato qofka bini'aadmiga markuu weesaysanayo gacmihiisu lagu amar lagu siiyay inuu marka hore dhaqo si fiican dhaqo intaan jirkiisa kala xaqaas caruurteena hooyooyinka gaar ahaan hooyada iyo ilmuhu waa muhiim waa meesha ay ka bilaabanayso hawsha guriga iyo nadaafaddu saa awgeed waxaynu xoogga saaraynaa dhammaantiin inay maxay tahay nadaafadda guriga iyo ilmaha oo gacmaha laga bilaabayo gacmaha lagu dhaqo saabuun ama waxa la yidhaaho waxyaalaha gooya wasakhda wuxuu doona ha noqdo. inta badan madaxdii iyo dadweynihii goobta ka hadlay ayaa bulshada kula dardaarmay inay nadaafadda ku dadaalaan si looga hortago cudurrada nadaafad xumada ku yimaada. Maxamed Saciid, Somali Channel, Garowe. wasaaradda caafimaadka ee Puntland ayaa magaalada Garowe waxa ay ku qabatay shir wacyigelin ah oo ku saabsan fayadhowrka iyo nadaafadda sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Maxamed Saciid Yuusuf. munaasabadan wacyigelinta ay lagu qabtay xarunta wasaaradda caafimaadka ee magaalada Garowe waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka xubno ka tirsan golaha wasiirada hay'ada caalamiga ah bahda caafimaadka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana bulshada lagu iftiiminay faa'iidada nadaafadda iyo xanuunada laga dhaxlo nadaafad darrada iyadoo munaasabada lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee farxalka adduunka oo ku beegan 15 Oktoobar maadaama biri ay tahay maalin ciid ah oo dadku fasax yihiin. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland Cabdirasaaq Xirsi Xasan ayaa ka sheekeeyay faa'iidada ay leedahay in nadaafadda lagu dadaalo isla markaana faraha la iska dhaqo hadii gacmaha sida lagu talagalay loo dhaqo ama la iska ilaasho nadaafad xumada in waxa la yiraahdaa dhaqaatiirta waxay dhahaan boqolkiiba 75 cudurrada waxa looga hortagi karaa kaliya muxuu ahaa faraha lagu gudbiyaa.